agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafintu waxa uu yimid wasaaradda warfaafinta shaqaalaha iyo maamulka wasaaradda oo isku duuban iyada oo rajo weyn laga qabay in agaasimaha cusub uu noqdo mid la jaan qaada shaqaalaha wasaaradda warfaafinta isla markaasina hore uga sii wada halka ay taagnaayeen oo ahayd meel fiican. dhammaan shaqaalaha wasaaradda warfaafintu aad ayay wejiyadooda aad uga dheehanaysay farxadda ka muuqata. waa maalintii uu xilka la wareegay agaasimaha guud ee Maxamed Yuusuf waxaa loo soo dhaweeyay si meeqaamkeedu aad u sareeyo, waxaana waaxda dhaqanka ee wasaaradda warfaafintu ku soo dhaweysay hees ay u qaadeen agaasimihii hore ee Mukhtaar Maxamed Cali, isla markaasina lagu soo dhaweynayay agaasimaha cusub. daawadayaal qadar yar daawo heestii sagootinta iyo soo dhaweynta agaasimaha cusub. rajada kaliya ee ay shaqaaluhu qabeen ayaa ahayd in uu noqdo agaasimaha guud oo cadaalad uu ugu shaqeeyo qarankiisa
balse taasi waxaa ku hingoobay shaqaale weynihii wasaaradda warfaafinta oo uu u kala qaybiyey islamarkaasina dhexdooda soo kala dhexgeliyey cunfi iyo qabyaalad aan hore uga jirin wasaaradda warfaafinta Somaliland isaga oo aan samayn maamul daadejin muddadaasi sanadka ah ee uu joogay oo gacanta ula taga waax kasta oo warfaafinta ah kaligiina ka taliya dhammaan waaxyaha kala duwan ee wasaaradda warfaafinta waxa meeqaamkoodii hoos u dhacay muddadaasi sanadka ah ee uu joogay agaasimaha guud ee warfaafintu rugcadaayadii saxaafadeed ee wasaaradda warfaafinta isla markaasina ahaa mustabeedka warfaafinta waxaa ka mid ah rugcadaayadaasi Xuseen Cabdilaahi Deeqsi oo ah wariyihii idaacadda Radio Hargeysa warka ka akhriyay warkii gooni isku taaga madax bannaanida Jamhuuriyadda Somaliland maanta dibadda ayuu ka joogaa wasaaradda warfaafinta waxa kale oo ka mid ah Xasan Maxamed Yuusuf oo ka mid ahaa rugcadaayadii isla markaasina ka tirsanaa jabhaddii SNM qarankana ugu soo shaqeeyay qalin iyo qoriba waxa kale oo ka mid ahaa suxufiyiinta waaweyn ee warfaafinta ee meeqaamkoodu hoos u dhacay inta uu yimid agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafintu isla markaasina ahaa mujaahidiintii ilaa qaaxo ka soo howlgalay Axmed Xuseen Cali Cawaale Daawud Xuseen Xiiri Axmed Xuseen Warsame Axmed Maxamed Cawaale Abiib Iimaan Xasan Maxamed Xuseen Cali iyo rag kale oo badan waxa uu soo dhacweynay ku yimid shaqadii telefishinka qaranka oo uu faraha la soo galay agaasimaha guud ee warfaafintu isagoo oo magaciyaal ka dhigay dhammaanba agaasimo waaxeedyada warfaafinta sida agaasimaha telefishinka qaranka agaasimaha idaacadda Radio Hargeysa iyo dhammaanba waaxyaha kale ee warfaafinta waxa gabi ahaanba hawada laga saaray qaybtii afka Ingiriisiga ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland halka qaybtii Carabiga ee telefishinka qaranka inta uu joojiyay agaasimaha guud haddana uu dib hawada ugu soo celiyay isagoo oo tan iyo maalintii uu yimiday wasaaradda warfaafinta ku taamayay inuu xiri doono qaybta afka Carabiga ee telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Somaliland hoos u dhaca ku yimiday meeqaamkii wasaaradda warfaafinta waxa ka mas'uulaha agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta oo ku dhaqmaya musuqmaasuq halkii ugu sareysay waxa uu lunsaday agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafintu dhammaan lacagihii loogu talagalay in lagu bixiyo ciyaarihii live-ka ee Berbera iyo Hargeysa Stadium oo ilaa hadda aanay haynin lacagtii shaqaalihii ka qayb qaadanayay gudbinta live-ka ciyaarihii horyaalada Somaliland waxyaha uu curyaamiyay agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafintu waxa ka mid ah waaxda shaqaalaha dhinaca kale Axmed Maxamed Cawaale waa isuduwihii gobolka Hawd ee warfaafinta agaasimaha guud ee warfaafinta ayaa xilkii ka qaaday isagoo oo xaqiisa u raadinayay wiil dhalinyaro ah oo la shaqeynayay isla markaasina wiilkii xaqiisa uu u raadinayay u magacaabay isuduwihii gobolka Hawd wasiirka warfaafinta oo wax laga weydiiyay xilka qaadista suxufi Axmed Maxamed Cawaale ayaa sheegay inaanu isagu xilka ka qaadin geesta kale waxa kale oo warfaafinta laga eriyay suxufi Sacad Foodcade oo ka mid ah suxufiyiinta Radio Hargeysa isla markaasina ka hadlay barnaamijyo lacagtooda la lunsado oo ay qaataan maamulka sare ee wasaaradda warfaafinta waxa isa soo taraya ilaa hadda musuqmaasuq baahsan ee ka dildilaacaya wasaaradda warfaafinta wixii warar ah ee ka soo kordha kala soco wakaaladda Sabakaab 47 Media Group arna wuxuu ugu wareejinayay wasaaraddii warfaafinta iyo dhaqanka iyo wacyigelinta cadaalad baa dadka deeqda cadaalad baynu ku maamulaynaa kii dheeraadka haystana waynu ka qaadaynaa kii dulmanaana waynu soo kicinaynaa insha Allah intaas iyo isu keenteenkeeda iyo isku waditaankeeda